mucaaradadu masaalixda dalka kuma jirto laiskuma mucaarado masaalixda dalka war dalkan aan shabaab ka kacsanno war dalkan aan Itoobiya ka ceshanno iyo cid kastoo kale soo haminaysa war dalkan aan isku soo celinno aan midayno aan dhinac u wada jeedino war dawlad aan helna mas'uul naga wada ah dhamaanteen on koox mas'uul nooga ahayn waxa aan ku taaganahay waa intaas raga qaarkiis marka nimankii nabadda ka cabsadaan aan lahaa inay inta argagaxaan mid microphone la boodo iyo mid meel xun istaaga inaan u kala qaybsanno ma aha waxaan dadka ka ballan qaadnay dawladnimo oo ay ugu horeyso waxa aan sheegnay qofka Soomaaliga cabsi la'aan horta caawa gurigiisa inuu seexdo si aan meeshaas u soo gaarnaa hadii qiimo badan inaan bixinay u baanta waana bixiyo hayna wiilal Soomaaliyeed ayaa dhiigooda u daadinaya si qof Soomaaliyeed hooyo Soomaaliyeed iyo aabba Soomaaliyeed iyo cunug Soomaaliyeed ay nabad ugu seexdaan caawa ay gurigooda ku gamaan ayaa nin dhiigiis u bixiyoha inaan marka codkeena aan marka qaarkood ka bakheelno ama codkeeni aan uga hortagnaba wiilkaas dhiigiisa bixinayo sababta u bixinayo cagsigeeda aan ka shaqeynaa oo ama maamul haday tahay maamulka qalluucina dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan markale waxa uu celinayaa nabadda yaanan laga cabsanin dawladnimada dhismaysa yaan laga baqin dumista shabaab uu sii dumaya yaan laga baqin aan isku duubnaano aanan ka dul qaadano waxyaabo qaarkood ma dafiraayo dadku qof hadaan aadno waa laga yaabaa qof dad badan wixii ay rabeen iyo sidii ay wax u rabeen iyo sidii wax u arkayeen in aanay suurto galin laakiin dawladnimadu dadka qof uma aadi karto oo waxa uu qof walba rabo ama dareemayo ama ra'yiga uu qabaa ma wada fulin karto waxa fiican dadku in ay dawladnimada isku soo hagaajiyaan oo dawladnimadu waa saas hadii la yiraahdo meeshaas lagu yiraahdo